saaka subaxnimadii hore waxaa murashaxa guusha doorashadu dul hoganayso Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo wafdi ballaadhan oo horkacaya ay u kala yeesteen gobol weynaha Togdheer oo in dhawaalaba isku duubni aan laba daamood kala lahayn ugu abaabulaa isbedel qaranka kulmiye lagaga sabata bixiyo Togdheer dhab ahaan waxa ku dhufatay duufaanta isbedel doonka waxa wafdigu soo gaaray degmada Qoyta waxaana kumanaan dadweyne ah taageeradooda banaanbax ku muujinaya iyo gaadiidkoodu wafdiga ku qaabileen waxanka iyo xamaasada bulshada reer Qoyta ee weerka u xiran isbedel la mahadiyo sidan ayuu ahaa xilliga oo gadiidnimo maalmeed aha iyo cadceed oo kululayd waxa rabbi weyne u dalaalimeeyay daruuro wafdiga murashaxa oo ay qayb ka ahaayeen murashaxa madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Cali hogaamiyaha ay loodin kari laayihiin korneelada kulmiye iyo haraagooda guusha daba maray xirsi xaaji cali xasan ambaasadar Cawaale eegas wasiir Cabdilaahi Ciro siyaasi xamarji iyo mas'uuliyiin kale oo tiro badan waxaana wafdigu soo dhaweyn inda daraantar ahay dabadeed dadweynaha reer Qoyta kala hadlay goob fagaara xamaasadu way ka muuqataa burco waxaan ku ogaa xamaasad dheeraada anigu halis baan leeyahay waxa weeyi hal bedelo reer Qoyta qoladii idin dagaalamaysay oo ku hayn qoladii idin ka dagaalamaysay degmanimadana waa kuwa wax doonaya ma kuwaas ay wax siin doontaan arrintan maantu waa arrin kala guur tusisa moogtay kulmiye waa hadday wax ku qaadanayaan ummaddu maanta isbeddel bay doonaysaa meel wal bari iyo galbeed waxaa lala yaabaa oo moogtahay anuu aan la yaabay madaxweyne ku-xigeenka iyo musharaxa kulmiye oo wada socda oo leh waxaan nasiib u yeelanay maanta laba nin oo reer galbeed ay noo sharaxan marka waxaan sidhi war gobolladii baritol Soomaaliland miyaa laga saaray muuna madaxweyne wahayn kelmadda aad iyo aad baan ula yaabay marka waxaan idin leeyahay reer Togdheer iyo reer Bariyow kelmadda u fiirsada madaxweyne ku-xigeen maanta waddanka madaxweyne ku-xigeenka oo xukuma oo le maanta waxaan nasiib u yeelanay in laba qof oo reer galbeedii aynu u sharaxanahay oo maanta qof reer bari oo dambe aynaan hoos fadhisaneen saaxiibkay Ramaax oo maanta u xilibsiibtay gudoomiye xisbi oo aaltabaysa gudoomiye gobol aad iyo aad baan uga xumahay insha Allah 2 bilood baa idin hadhay 2 bilood waa samraysaan insha Allah systemka maanta in wax laga bedelo ayaanu soo qaashaaranay idinkuna sida aad noo soo dhaweysaan waxaanu idinka doonaynaa inaad codkiinana noogu dartaan aadna u mahadsantihiin waxaynu u baahannahay haddii alla ka dhigo inaynu diyaar garowno oo wacdara dhigno maalin dhow reer kulmiye ayaa halka carabka lagu dhuftay oo la yidhi waxa weeye halkaasuu maraya xaaladda dalku dee iyagaaba qiray muuse iyagaaba qiro waxay dalku xaalad adag ku jiraa dalku xaalada Muuse sheegay Muuse bixlaftiisa xaalada adag ku jiraa buu hadda reer kulmiya sheegay oo talo xaalada adag yaa galiyay xaalada adag ninkii galiyay ka saari kari maayo xaalada adag ninkii galiyay xal keeni kari maayaanu leena kadib magaalada Burco ayaa wafdigu u jihaystay Burco waxay wada jir u beeniyeen maanta xisaabta xisbiga la jirabay wali jeebka ku sito ee ku taariikhaysan doorashadii sanadii 2010 gaadiidka oo kumanaan ka badnaa waxa adkaatay muddo saacad ka badan sidii wafdiga murashaxu ay u gaari lahaayeen gudaha magaalada Burco oo maanta caruur iyo ciroole rag iyo dumar siday saaka uga soo kalaheen guryahoodii aan dib ugu laaban gudaha magaalada ayaa wafdigu soo gaaray murashaxa shacabku wato Dr. Ciro oo aan jeclayn in isaga iyo bulshada cidi u dhaxayso meel ay ahaatabana dhex lugeeya waxa adkaatay inuu cagta dhulka dhigo maanta
taasi beddelkeedina waxaa murashaxa rajadu gacmaha uga haadinayay dadweynaha hogaamintiisa u jeelan gaadhiga dhexdiisa dadweynuhuna sidii boqorka shinnida ayay halkuu soo maraba ku xoomayeen kaliya dadweynaha reer Burco saaka ma ay lugeynayeen oo kaliya hase ahaatee waxay daba gucleynayeen tan iyo intuu ka gaadhayay hoteelka uu magaalada Burco kaga degay ee Hotel Balasa gaadiidka wafdiga cadadka iyo tirada shacabka oo xad dhaaf ahayd una muuqatay tirada codbixiyayaasha Burco ka kooban tahay waxay ku qaabileen wafdiga dareen rabitaan ku leedan yahay gudaha magaalada shaariciyada iyo jidadka waaweyn suuqyada ganacsiga Burco daanay tahayba maanta waxay muujiyeen inay heeriyada kulmiye mar labaad hulaaban doonin hal fariin oo kaliya ayayna wada jir u dirayeen taasi oo ka dhignayd gantaaladii Saddam Hussein ugu magac daray askud ya Israa'iil Burcona waxay fariinta wada jirka ay kulmiye ugu dirayeen ahayd daluuntii dalka aad ku rideen diblomaasi kaliya ayaa ka soo saari kara quus ayay uga dhignayd xisbiga shacbiyada ka aridan quus ayay uga dhignayd xisbiga haatan ay isugu hadheen korneylada iyo midharka guusha baalmaray quus ayay uga dhignayd xisbiga jaraha guusha uu ka raadinaya yahay qoloqolaynta iyo kala qaqabka bulshada kulmiye maanta iyo Burco maalin ciideed iyo May ee diinkeed midna laguma suurayn karayn Hotel Balasa oo gudoomiyaha iyo wafdigiisu ku degeen hortiisa ayuu ugu dambeyn murashax Ciro kala hadlay dadweynaha alle waxaan ka rajeynayaa inuu talada dalka inagu guuleeyo shacabka waxaan leeyahay ku bushaaraysta dawladnimo cadaalad hoggaan u tahay ciidamada qarankana waxaan mar labaad ku celinayaa inaad heli doontaan mushahar korodh hooy aad u hooyataan iyo xuquuq dhameystiran waxay qayb ka ahaayeen hadalladaasi khudbadda Dr. Ciro uga jeediyay fagaaraha Hotel Balasa hortiisa shacabka iyo dadweynaha reer Burco aad ugu mahadnaqaynaa shacbiga Togdheer gaar ahaan magaalada Burco oo iyadoo cadceedu siday kulushahay ogtiin haddana aad maanta halkan heegan ku tihiin cadceed tuban tihiin si aad u soo dhaweysaan waxaynu doonaynaa maanta isbedel mid khayr qabaynu doonaynaa waxaanu aad iyo aad idinka mahadnaqaynaa ilaa qoysa ilaa halka mid baa ku socotay aad iyo aad baa umahadsantihiin insha allahu Burco waxay noo sheegtay maanta fariin cad oo kulmiyo nadaaf waxaana noo shacbiga ugu bishaaraynaynaa dawlad wanaagsan oo xildhibaankeedu yahay cadaalad waxaanu ugu bishaaraynaynaa shacbiga shacbi siman oo aan loo kala eexanayn haddii la yidhaahdo waxaanu ugu bishaaraynaynaa in laga tirtiro qabyaaladda Somaliland qodobka iyo kala qaybsanaanta iyo musuqmaasuqa waxaanu aad iyo aad idinka mahadnaqaynaa ilaa qoysa ilaa halka mid baa ku socotay aad iyo aad baa umahadsantihiin insha allahu Burco waxay noo sheegtay maanta fariin cad oo kulmiyo nadaaf waxaana noo shacbiga ugu bishaaraynaynaa dawlad wanaagsan oo xildhibaankeedu yahay cadaalad
waxaanu ugu bishaaraynaynaa in laga tirtiro qabyaalada Somaliland ururka iyo kala qaybsanaanta iyo musuqmaasuqa waxaanu ugu bishaaraynaynaa in kulmiye galbadayoolkii oo sid mudan inaan u mahadnaqo ciidanka qaranka gaar ahaan ciidamada booliiska oo maanta raysay ilaa halkan ammaanka si fiican u ilaalinayay waxaanu ugu bishaaraynaa ciidanka qaranka annagoo kala soocin inaannu ka dhabaynayno ballanqaadkaygii ahaa in boqolkiiba 250 loo kordhiyo ciidanka qaranka waxaanu ka dhabaynaynaa inaannu abuurno xafiiska xaqsiinta ciidanka haddii ilaahay ka dhigo waxaanu ka dhabaynaynaa inuu askari kasta guri u dhisto cabdirasaaq teera kalsan TV magaalada Burco.